ma isweydiisay waxa dhici kara haddii Djibouti, Yemen ama Eritrea midkood ay xidhaan marinbiyoodka Bab el-Mandeb. halkani waa marinka Bab el-Mandeb, albaabka isku xidha laba qaybood oo ay ka kooban tahay dunida aynu ku noolnahay. waxa kulaalaya wadamada Yemen, Djibouti iyo Eritrea. waa marinka ugu muhiimsan ee adeegsadaan doonyaha shixnadaha sida ee ka imanaya Afrika iyo Asia una gudbaya badda dhexe, kuwaasi oo ku wajahan xeebaha badweynta Atlantiga iyo labada Ameeriko. mar labaad doomahaasi shaaximan ayaa waxa ay ka soo laabtaan dhinaca waqooyi iyaga oo dhanka koonfurta u socda, isla markaana adeegsanaya marinbiyoodka Bab el-Mandeb. maxay tahay ahmiyadda uu marinkani u leeyahay caalamka? maxaase dhacaya haddii gebi ahaanba la xidho? marinbiyoodkan waxaa lagu sheegaa in sanadkii ay maraan 17,000 oo doonyood, taasi oo ka dhigaysa in 12% ganacsiga adduunku halkan maro. si la mid ah 3 meelood oo meel shidaalka adduunka iyo 8% ka mid ah ganacsiga gaasta dabiiciga ayaa isaguna halkan mara. Bab el-Mandeb wuxuu xagal toosan ugu beegan yahay marinbiyoodka kale ee Suez, oo haddii midkood la xidho kan kale aanu la'aantiis shaqaynayn. indhawaale waxa soo noqnoqonaysay hanjabaadda biyaha badda cas ee ka dhanka maraakiibta u raran dhinaca Israa'iil. goodintaasi waxa ay keentay in saamayn toos ah ay ku yeelato 4 ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ganacsiga caalamka. maxaa dhici kara haddii marinkani uu isxidho? adduunkuse ma haystaa beddel kale oo aan ahayn Bab el-Mandeb? juqraafi ahaan marka la eego, ma jirto wax kale oo dunidu ay ku doorsan karto Bab el-Mandeb. haddii uu xidhmo, waxay noqonaysaa in maraakiibtu ay ka soo wareegaan cidhifka ugu fog ee qaaradda Afrika. tusaale ahaan doonyaha ka soo shiraacanaya dalka Malaysia ee ku socda badda dhexe oo markii hore waqti kooban ay ka qaadan jirtay, markan waxay u jahaysanayaan gacanka Cumaan, kadibna waxa ay soo marayaan xeebaha Soomaalida iyo badweynta Indiya oo dhan. mar kale waxay ku soo wareegayaan qaaradda Afrika oo idil, haddana waxa ay dhammaystirayaan badweynta Atlantiga, halkaasi oo dabayaaqada ay kaga dhacayaan badda dhexe ama qaarkood ay u jahaysanayaan dhinaca labada qaaradood ee Ameerika. isku daygaasi waa mid u baahan waqti badan iyo hanti aan xaddi lahayn. waa masaafo badeed oo aan ka yarayn 13,000 oo kiiloomitir, taasi oo maraakiibta dariiqan adeegsanaya ka qaadanaysa 6 toddobaad oo xidhiidh ah. kasakow dhaqaalaha malaayiinta ay u baahan yihiin badeecadaha qaabkan isugu gudbaya caalamka, waa mid yeelanaya khatar amni maadaama fogaanta maraakiibtu ay ku socdaan ay tahay mid aad u dheer. wargeyska la yidhaahdo The Economist ee ka soo baxa dalka Ingiriiska waxa uu qoray in dunidu ay wajihi karto dhaqaale xumadii abid ugu darnayd haddii ay dhibaato soo gaadho marinbiyoodka Bab el-Mandeb oo ah isha dhaqaale ee ugu weyn dalka Masar. marka la eego dhinaca Israa'iil, badeecadaheedu 70% ilaa 90% halkan ayay maraan. taasina waa midda sababta oo aan dhaqaalaheedu uu sameeyo kobac xawli ku socda. wargeyska ka soo baxa Israa'iil ee la yidhaahdo Yadcoot Ahraanot waxa uu ka digay saamayn dhaqaale ee Israa'iil ay ku keeni karto hanjabaadda Yemeniyiinta ah ee ka dhanka ah doonyaha u raran dhinaca Israa'iil.